xasuuqaas marka waa mid socdo waa dhimashada iyo dhaawacana waxa weeye 59 sidaas ay maraysaa xoolahan ay sheegin ayaga dhibaatooyin yarayn 2011 ayaan soo galnay dowladda Sheekh Shariif ciidamo loo soo baray oo soo tababaray gudaha dalka Kenya waxaan soo galnay 2011 bishii saddexaad sideedii baan soo galnay ilaa maanta ilaa يوم هذا xabadda saasay shacabkana ay ugu socotaa dowladda Kenya marka xasuuqaas ay ugu wadaa waxa weeye anagu dowladii dhanay nama soo gaarin taasna dowladda jirta weyna ma soo gaarin saadafteed dowladna wada baqayo la xisaabayso ma jirto marka xasuuqan aan oo baabiin hada iyo dunyada ayaa ka jiro dalkan gado maanta gaar ahaan hadda aan joogo degmada Soomaaliya sagaal iyo konton dhimasho ay martaa dhimasho dhaawac markaan si jeeyo xoolaha nool iskada arrintaasi marka dowladda Soomaaliya ayaan baaq u dirhayaa oo hogaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya xasuuqa meeshan ka jiro maxaa loo arkilahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda dalka maxay u arkilayeen baarlamaanka dowladda dhexe shacabka senatarada maxay u arkilayeen xasuuqa gobolka deegaanka ka socdo dhibaatooyin u geeba xasuuqa dhibaatada ay dowladda Kenya wayto waa inay la xisaabtamaan haddii nimankii Soomaaliya loo doortay mas'uuliyadda qaaday u dhaafay haddii ay iska fufudhiyo xaqaadan haddii ahayn oo ay mas'uuliyadda waa inay si toos u la xisaabtamaan meel soo farageliyaan. Way. Waa inay ugu soo gaaraan. Dhibaato kan haysto